wafdigan uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ayaa soo kormeeray dhaanbiyoodka deegaanka toon oo u baahan in dib u habeyn iyo dayactir ballaaran lagu sameeyo waxaana kormeerkaasi ku wehelinayay hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda horumarinta biyaha intii ay kormeerkaasi ku jireen waxa ay soo indheeyeen xaaladda guud ee dhaanbiyoodka deegaanka toon iyagoona mid u dul istaagay bulshadana ka xog wareystay baahiyaha asaasiga ah ee dhaanbiyoodka deegaanka toon ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka toon waxaana ay tilmaameen in bulshada degan deegaanka toon ay baahi weyn u qabto in ay hesho dhaanbiyood ay kaga baxaan biyeeraanta ka jirta deegaankaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wafdiga waananu soo dhaweynaynaa goobtan imkaanu taaganna waxa weeyaan halkii ay ballayga ka gelayeen biyuhu waxaana loogu talagalay meeshii ahayd nin istumari jirtay ballayga ka buuxinaysay bacaadka ayaa loogu talagalay in dhagaxaan dul taaganahay uu ka xidho bacaadka uu joojiyo tanuna maahay waa dhowr iyo 30 meelood oo xagga naga xiga iyo xagganba naga xiga oo fara badan weeyaan marka hawlo ka badan oo ballaaran oo kale ay sheegayaanu laga qabanayo deegaanka ilaa 6 sanadood oo jira iyagana way jiraan marka hay'adda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo agaasimaha biyaha waan soo dhaweynaynaa markaan soo eegno dhuuntii hadda biyo ka galiyeen waa xidhantay annaga dib u qodmay hawlaha aanu ku darsanay waxa kamid ahaa inaanu dhaamka garanwaaga aanu ka goyno waxaanu kaloonu ku darsanay inaanu dhuuntii filterkii balliga ka shaqayn jiray si daaragtii aanu idin dul joojin taana deegaankii community-ga ka shaqeeyay waynaynu soo aragnay waana hawl shaqeynayso halka taaliyo oo sidii balliga loogu talagalay inuu uga shaqeeyo aan looga shaqeyn oo u shaqeyn buu lahaa dhoobadina way saaran tahay waana inoo ammaankaasi waana soo aragteen qaybta beeraha aad ayaan u baahanahay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee WHH oo wada shaqeyn ay leeyihiin wasaaradda horumarinta biyaha ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay ku dheeraadeen dayactirka iyo dib u habeynta lagu sameyn doono dhaanbiyoodkani iyo ahmiyadda uu u leeyahay bulshada degta deegaanka toon gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Cabdirasaaq Jaamac Nuur waxaana uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay dadaal ugu jiraan sidii bulshada reer Somaliland ay u heli lahayd biyo ku filan isagoona bulshada reer Somaliland ugu baaqay in ay sameeyaan biyo xidheeno si ay uga baxaan baahida biyo yaraaneed ee ka jirta dalka halkan waxa ka dhacaysa shaqo wada jira waxa qayb weyn ka ah bulshada deegaanka toon halkan degan waxaynu aragnaa wax fara badan oo ay ka qabteen oo u baahnaan lahayd maalgelin badan marka qaybtooda ayay maalgelinta leeyihiin oo xoogoodii ayay tabaruceen taasuna waa mid aan aad ugu baahanahay bulsho weynta reer Somaliland inay kaga daydaan ujeedadu waxa weeyaan guga soo socda in la qabto boqolkiiba ugu yaraan 25 biyaha roobka ee soconaya maalgelinta la sameeyaa waa inkayn iyo inkaash waxa weeye waa mid naqada iyo mid xooga marka taa xooga ee muujiseen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan jecelahay marka uu dhamaado balligan hadii la ka dhigo ama dhaamkanu qaybihiisa kala duwan ee biyuhu farsamo ee la gelinaya maamulkeedana inay aad ugu filaan doontaan waxaan ballan qaadayaa inaanu idin tababarro hadii la ka dhigo dad sii wada sii socodka iyo sii shaqaynta dhaamkan Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Somaliland